Soomaali baan la hadlayaa iminka dhammaan Soomaali baan nahay intaan meesha soo gudbay aniga dalkaan markaan imid erayga igu darnaa qalbigayga aan ka go'no waxa weeye markaan isdhiba la yiri magaca Mustafa Cilmi Cabdulle miis dhiibtay wees dhiibay iska hubsan miis dhiibtay wees dhiibay oo miis dhiibtay saddex jeer la bixiyay hadalka foorxun oo na soo maray dhammaan sidaas la yiri waxaan leeyahay Soomaaliya haddaan iyaga abta Soomaali ashxumada dhaqankeedii ay yidhiidooda gabaga inaan gaarnaa soo tagasha aan horta idin tafsiiro waxa weeye marka ii sheegeen dhaqanka Soomaaliya dalkeeda waxa jira eeyo badan qalabkii u badan yihiin fiidkii ay dhigayaan dhowr iyo 20 ay markaas waa sayidkii ful laga dabada la gooyo cadda la gooyo waqti lagu bariyo carruurta soo kacda yaa kala turiyaysa markaas ay diina marka teed degan meel ku aragta kuwa laba meel ku araraan kadib amadan ku xal ku jiray la dayaxay waa la arkayay ayuu meel ku xira kan ku xal ku jirin maxaa ku dhacay ma waxa ay ku way ku heshiin waayo halkana meesha ka helay marka waxaan halkaas aan uga soo halqabto waxaan Soomaalida haddaan eegayo abta Soomaali aan shaqada dhaqankoodii ay yareeyadooda aqal duminta u badlaynta iyo afad iyo boobka ana mudantii in suquudlaanta iimaanka wuu yiri haddaan odorosan kursho 4 iyo 8 iyo 2 ah oo ay diga heesta maduna ma astaayana way sugu idlaadaane ayagoon orgeygu baryaa oo gawaabiriyay dabeedna way kala eryaan ubadka toosaaye intii madan ahayna ka hela meel ilbaadarahe sidaas ay aniile yihiin waana aragtaan bal ariya afgar oo ilbixin ugu yaabi horteena lagu qaadan doona waa soo qaxnay inaan waan idin sheegay anigu waan soo qaxnay dalkeena waa loo qaxay hadda ogtiin hadda ogeynina wallahi waa loo qaxay inta soo ka soo baxday Soomaaliya oo kala dad ku beertay waan lagu qulayaa taas waa sidaas anigu amaan noo hayo hadii ka mid baan hal amaan noo hayo aydeena misu sheegnamida aydeena anigu aan kala mid ahay ma idin sheegaa mise amaana tabtaan amaana ma hayo noo hayo amaano ma jirto ma banihinba waa qoslaysan oo nigtimaa xirantiina oo qoslaysan sidii xorho wanaagsan dadkii ee warxaan joogay dalka joogno cimilada aragti ku nool yahay cimilada ku nool yihiin iyo nolosha ka sameeyeen iyo anagu cimilada ku noolayn iyo nolosha ka sameeyeen ka maarmooyin ayaga aanu nimid iyo sidii noo qaabileen ilaahina ku dhaashay dadku waa saddex dad oo reer bini aadana wuxuu sameeyay meeshuu soo garanaya iyo dad ahayn oo inuu dad noqdo rabo kuwaas dadka ku dayanaya iyo dad ahayn dadnima inay ka maqan tahay aan ogeyn dad ismoodaya oo haddana dad inay yihiin moodaya marka waxaanu nidhi ka dambaynu nahay anagu waa iska qoqosaynaa nigtimaan xiranahay dadkii waa baabi'inay waana ka soo tagnay badii aan goranayaa dhulkii baa la goranayaa dahabkii baa la goranayaa ayagaa la maamulayaa inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun maslaxadeeni ajnabi haddii maanta laga sugaa ismaamuli kari lanahay wala magaceen bayay wala magaceen ba ismag Soomaaliyay rusul waxa la yiri waxaan tagay maashi la oran jiray bagaasi asa wariya Maxamed iska waran waa fiicana ko shirka soo socda si fiican u socda hashaan ko maxaa isagaan dad maxaa inta faarka ka waran waa waraashada maraykanka wata oo guulad ka waran asigana waxa asiga xanni masaxatay Itoobiya wata عبد الرحمن كور عبد الرحمن صالح احنا عرفنا وصلنا كور وصلنا فضل الحي قال انت هي ولدتها قولت كور قولت وحوت جوانا ولدتها وأضيو إلهي تنكريا والله وضعنا نجران حيوان بقى حاجرا حدانا وحوضنا جيران والله السنة يبربع ماشي فضل الهاي markaasaan hadda goorma dawladda la siiyay yiraahdeen waa loo ogyahay ma oga oo goorma dadka laga tagay yiraahdeen waa loo ogyahay ma oga dadku goorma lagu noqonaya waa loo ogyahay ma oga maxay ogyihiin wixii la ogeysiiyay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun hadda yaa la sugaya karoos musoo kibli gadi musafiini oo qof xaatiri karoos musoo kibli gadi musafiini oo qof sameeyay ma sugiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun وانا اقول يا همي لا انسان انا ولا بس انا ماشي اقول يا هذا يمد وانت كنت حسبت هاي قولوا وهنا
ما بدل ما يحسنا أنقذ مصلحة الديني أجنبي حد ما تلقى السباع ونسمع مولد كريم النهاية ولا مقاعين بقي ولا مقاعين مصلحة الديني أجنبي حد ما تلقى السباع ونسمع مولد كريم النهاية ولا مقاعين بقي ولا مقاعين اسمك صومالي مسؤولين دورنا وأنا لقى الحين اسمك صومالي ولا مدحي حي وانا لقى الحين متشيو إمنك روم مغضو ما هينو نفيعان هذا نفيعان ما قبنو متشيو إمنك روم مغضو ما هينو نفيعان ما قبنو وغير والله خلاص عبيان معنا واضح اللي هو يوم الحوص عبيننا وما شاء الله هذا يسبب تحيين ولنا مضحني مربان بس يقعدنا عندي بس يقعدنا عن وما شاء الله هذا يسبب تحيين ولنا مضحني مربان بس يقعدنا عندي بس يقعدنا عن اسمك صومالي مسؤولين دورنا وانا لقى الحين اسمك صومالي ويا مدحي حجهي وانا لقى الحين متشيو إمنك نوم مغضو ما هينو نفيعانو ما قبنو هوي نمي مسكادي هكتو أشري مجرها قوة هدان بدنا بلغنا هاي مديا مالو دعيي مديا مالو دع نمي مسكادي هكتو أشري مجرها قوة هدان بدنا بلغنا هاي مديا مالو دعيي مديا مالو دع اسمك صومالي مسؤوليانو دورنا وانا لرقا الحين اسمك صومالي وريا مدحي حجهي وانا لرقا الحين متشيو إمنك نوم مغضو ما هينو نفيعانو ما قبنو نفيعان ما قبنا علمو ونفيعان ما هينو هذا واحد يجري سومالي نفيعان هينا كو كارين كبضبيني نفيعان وهاي ونفيعان وهاي فرت كارين حاسب يعوضها انه نفيعنا كان فرت عم تقول يو هاي كيف لا اله الا الله هذا مش شيء بعد وسخ ما انا غير هبل حكومتها ما في انا اما حكومه كيف بدك حكومتها نفي عن ما قبله خدام قبله مش عن مني بعدين لمن آمنا ما قبل آمنات يعني قد ما في حاجة عسكر في الصومالية دي بدل العقل لو يقولوا بركة يقول يا سيريا هذه يا لوليبيا بدها هو كحولية حبل هو كحولية بدي كحولية بس حاسمينا العقل ما حد من معينة آمنات يعني قد حصل وان قبوني هذا كتير هذا مثال بقولك كستأدو كله المثال بين سقاطته مثال أنا سقاطه بركة واحد يا شاب أما أروسة أما أروسي منها أما قصلة أما قصلة أما نحبتها أما حنا ننتهي بين النهاية أما فرحة أما فرحة والله من مثال الله سقاطين النهاية وان عيبوني دبتين وبيننا دبتين وبيننا وان عيبوني أدوك لما مثال ما هستا عيدا هذا تريانه الله يرضى عليه ويحدوني كأخوي طيارية مساكين كل ما طريق ما هو طيب واحد يلعب وينين في الجنسيات ذهب وحيد عرض البرد غير الدنيا الشدائي ذكري عشان يوم حيد شين قدر الدوري ما فيش زمان شوف حيد اسمه ده جسري ناكل تكلم بس